Ilhaan Cumar waxay la wadaagtay dadka ku xiran barteeda Instagram-ka mid kamida wararkeedii ugu weynaa ee muddo laga dhowreeyay habeenkii Arbacada waa in ay guursatay. Gabadhan ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa barteeda Instagram-ka soo dhigtay sawirka iyada iyo la taliyihii hore ee siyaasadda Tim Maynard, waxayna ku dul qortay hadda waan guursaday, laga soo bilaabo saaxiib hore oo siyaasadda ah iyo hadda oo aan dhabaha u xaarnay bay tiri nolosha cusub oo wadajir u soconaysa. waxayna daba dhigtay mahadcelinta Rabbi ee alxamdulillah. erayada jaceylka ee u dhaxeeya Ilhaan iyo Maynard ayaa noqday mid afka aan laga qabsan karin ka hadlidiisa kadib bishii Agoosto markii xaaskii hore ee Maynard, Beth Maynard oo 55 jir ahayd ay si gambasho la'aan ah u dalbatay furiin. Beth Maynard waxay u sababaysay furiinka ay odaygeeda ka dalbanaysay markaasi tuhun la xiriiray in Ilhaan uu xiriir la leeyahay. bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, Ilhaan iyadu fadhi uma aanu oolin maadaama Beth ay go'aansatay inay kala dagaan ninkeeda. waxayna Ilhaan markiiba ka dalbatay furiin ninkeedii Axmed Xirsi oo ay caruur badan isku. furiinka Ilhaan Cumar iyo Xirsi ayaa la soo gabagabeeyay bishii November sida ay warbaahinta qaar wariyeen. Master Xirsi wuxuu markaa helay gabar kale oo Soomaaliya oo waaba ay saaxiibo ahaayeen, wuuna guursaday 37 maalmood kadib. Tim Maynard haddaba waa kuma ninka gabadheena Soomaaliyeed guursaday. Tim Maynard oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa waxaa la sheegay inuu dhashay sanadkii 1981 waxaana ku bartay jaamacadda New York. bartiisa gaarka ah ee xogaha lagu keediyo ee LinkedIn ayuu ku xusay in sanadihii 2001 iyo 2002 uu wax ku bartay Koonfur Afrika. waxa uu soo bartay culuumta siyaasadda oo uu ka qalin jabiyay sanadkii 2003. wixii intaa ka dambeeyayna waxa uu la soo shaqeeyay hay'ad la yiraahdo Alliance for Justice kahor inta uusan ku biirin shirkadda E Street Group. waxa uu horey u soo maray guur waxaana ay wada joogeen Beth Maynard oo ay dhawaan kala tageen sida aan horey idinkugu sheegnay. Maynard waxa uu ka tirsan yahay E Street Group oo ah shirkad inta badan ka shaqeysa istiraatiijiyadda ololaha doorashooyinka, dejinta qorshayaasha musharaxiinta doorashooyinka iyo shacbixinta intuba.